waxaa dhici karta mararka qaar inaad social media ku isticmaasho meelo public ah isla markaana waxaa laga yaabaa inaad la sheekaysanaysid xubin ka mid ah familkaaga ama saaxiibkaaga khaaska ah balse aadan si xorriyad leh ula sheekaysan karin qofkaad rabtay adigoo ka cabsanaya in asxaabta garbahaaga fadhiya ay arkaan fariimaha aad dirayso waayo qofna ma jecla in lala wadaago fariimaha u khaaska ah marka maanta waxaa ku hayaa hal application oo muhiim ah haddii aad la soo degtana aabkan qofna ma awoodi doono inuu arko fariimaha aad dirayso waana barnaamij free ah aad ka heli karto Google Play-ga sida caadada ahayd markaa gudaha u soo gashid Play Store-ka qaybta sirjiga ayaa waxaa ka raadinaysaa Jad Curtain oo ah aabkan magaciisa kadibna Facebook ugu horeeya ee ku soo baxo ayaa hal mar kili ku siinaysaa waa kina marka barnaamijka halkan ayaa ka soo download garaysanaysaa Jad Curtain asaga ayaa hal mar klik siinaysaa kadibna iconka barnaamijkan ama sawirka yar ee barnaamijkan ayaa dhanka bidix ee telefoonkaaga soo fuulaya kadibna waxaad gudaha u galaysaa mid ka mid ah aaladihii aad ku sheekaysanayseen qofkii ku qaaska ahaa haddii ay tahay Facebook, email ama WhatsApp marka hadda waxaan tusaalaha ku bixinaynaa WhatsApp tusaale ahaan ka soo qaad qofkii aad la sheekaysanaysay waa kina asxaabtaadana garbahaaga ayay fadhiyaan mana rabtid inay arkaan fariimaha aad dirayso kaliya iconka barnaamijkan ayaa hal mar kili ku siinaysaa kadibna daaha kalarka ah ayuu ku soo saarayaa kalarkan ayaa marka hoos u soo jiidaysaa meesha aad rabtid ayaa ku ekeynaysaa kadibna fariinta aad rabtid ayaa si fudud u qoraysaa marka waxaa muhiim ah inaad ogaatid kalarkan aad hadda u jeedid waa mid xoogaa khafiif ah waadna ka dhex arki kartaa wada sheekaysiidayna dhexmaraya adiga iyo saaxiibka balse ma arki karo qofka garabkaaga fadhiya marka application-kan wuxuu kuu fududeynayaa inaad si xorriyad leh ula sheekaysatid saaxiibkaaga khaaska ah adigoo ku sugan meel bulsho ah haddii aad rabtid ama uusan ku cajiibgelin kalarkan waxaa ka bedeli kartaa qaybtan setting-ka ah kadibna kalarada ayaad dhinaca rabtid u jiidaysaa kadibna save ayaad oranaysaa barnaamijkan waxaa rajaynayaa inuu noqdo xalka mushkilad in badan ku haysatay markii intaa barnaamijkan la mid ku kulmi doono waa walaalkeen Maxamed Kheer oo khayr idin rajaynaya